بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مدرسadaha islaamiga ah ee ku bahoobay markiska Nibcaan ibn Bashiir ayaa waxay musaabaqo soconaysay muddo 2 maalmood ku soo gabagabeeyeen markiska Nibcaan ibn Bashiir qaybtiisa Mayuuyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. haddaba waa kuwan xubno kamid ah macallimiinta ka howlgasha markiska uu kamid yahay Maxamed Rashiid Sahal iyo gudoomiyaha Ustaad Cabdiraxmaan. maraakista loo qabanayo imtixaanka ama tartanka maanta waa maraakista aad ku bahoobay maraakisu Nucmaan waxayna ku kala yaalaan madrasatu Nucmaan Shongoron midna maanta waa mid joogno oo madrasatu Nucmaan Muyu mid kale wuxuu ku yaalaa markasu Salaam aad u taqaaniin ushrika waxa kale oo jiro markas Nucmaan asayna sigiis ku yaal street ee laba madraso ayana ku yaalo Backland iyo Westland. hilmaam hadalku ma jiray waa madaarista quraanka loo soo gabagabeynaa intaas ay ka kooban yihiin waxa kale oo ku jiro madrasatu Daarul Cilmi fi xay ushrika إن شاء الله تعالى كونوا معلمين تأفكوا كوا هاللايو وحينو قرشيسن إن أورت عروتي نظام كي أن سي زيادينو إن شاء الله بإذن الله الباري قيبه تحفيد كأن 10 بدن كسي درنو أما أن أسي بدنه هوله قيب أن قدرنو ومامل كوه المامي وبورين أهان أمل وإن قدم ميش الوسي عروت أيسن بحين سي جانس كوا أما وقت كوا لو فائديو maadaama ay tahay dugsi quraan dhigtaa waxa ku jira tarbiya islaamkii salaadii soonkii cunugii wixii yaraa oo la baraay wixii dhan anaga ay mas'uuliyadda korka naga fuushay saas darteeda marka insha Allah waxay noo qorsheysan waa inaan horta tajdiidina oo macnaha aan ku darnaa quraankii sida uu wadnay casharada inaan badino koow mid labaad salaada oo u dhaarsanahay aniga macallimiinta afkooda ku hadlaayo caruurta yararka salaada inaan ka saxno nadaafadoodii farbarkoodii oo awalkoor 6 bil ahaaday insha Allah taala soonka aan la hoos galnay baryadiisa oon ka dhignay 4 bilood Soomaali inay kala tagtay tashilaantii waxay soo gashay masaajidii waxay soo gashay waababkii iyo malcamadii quraanka ahaa marka waxaan oran lahaa macallimiinta in Ilaahay kaga cabsadaan oo inay ka dhigin macnaha mashruucan oo dhadhamar raadis iyo nin walba macnihii waa dukaan iyo kiosk aan laga dhigin waxana waa hal Ilaahay معرفة وباهية يا برشة وباهية هاي أهل أدب وباهية هاي مركب حالة هاي بعض معلمين تأي الصوماليات ملك استيد شوغان به إنه يكرك قاضان أو معناها كلام كإلهي وحملة القرآن إنه هرتب النفط هذا إيه مستوى هذا أي عزيان ده إلهي بعزيه أو يكديان معناها لوقلوقة إيو دانايسيغا إيو جانس قادية إيو حيالهاس أي كديان وحضرك إيسا مدرسوين كي وقاضي فضل في ذنها ماشا ونكا إسكولك بريفتك ديغان هايان انتو كراس ديكتو وإسهابين هايو معالين كمركا كلام كإلهي ديغا يا صومالي وي هاني سنيسا وي معنيه كتشيفتا معالين وحان أركي جري بالقولي كتاب قرآن الله قاضي يتمر لقيمين جنا أركي جري أدونك وايس بدلي عربي وينغا تكتاي مركا إنغا مانتا عربة إنغا أغنياء إنغا تجراء إنان كلام كإلهي أينو شرفنو أينو aan ka saaro macnaha yahanada ayaa macallimiinta faran ugu dambeyntiina waxa jaaisado qaali ah oo ay ku farxeen la gudoonsiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay musaabaqada maaha markii ugu horeysay ee madrasadaha ku bahoobay markaska Nucmaan ibn Bashiir ay musaabaqo noocan oo kala qabtaan iyadoo sidoo kale taay barbar socoto culimada ka howlkala markaska oo ku baraarujiyay macallimiinta wax ka dhiga xaafadda Islii Soomaalidu degto inay mudoobaan isla markaana ay sare u qaadaan barashada diinta islaamka iyo hankeedaba. Ali Ismaaciil Ali, Home Cable TV, Nairobi.